marka hore meheradaad qabanaysaa waxaad soo iibsanaysaa qaybtan saddexda ilig leh kadib waxaad ku samaynaysaa waa qaybta ugu fiican ee la isticmaalo qaybo kale way iibiyaan marka tan ka codsiinay ka iibiyaan kadib waad furaysaa markaad furto waxaad ku soo muuqanaysaa sidan qaybtan aad arkaysaa marka ayaan furaynaa waa qaybta xadhkaha aan gelin doono labada xadhig baan isticmaalaynaa haddii ay meeshaadu saddex xadhig wadatana xadhigka saddexaad dib bay ka sharaxaynaa intan waa iska furaysaa caadkeer wuxuu qabtana way kuu sheegi doonaa kadib markay saa baashay kuugu bannaanaato xadhigka buluugka waxaad gelinaysaa hodka keligii meel taagan xadhigka buluugka ama madowga kolba siduu kuu noqdo neutral baa loo yaqaana oo dabceliye markaa xadhigkaa waxaad gelinaysaa qaybta buluug qaybta midheere keliga taagan qaybtan fiyuuska wadata fiyuuska waa baalkaa yare aad moodo inay bayteriyadu labada dhinac wax bayteriyooda hareeraha kaga xidhan yihiin badanaa dabka xadhigka soo qaadaya gelinaysaa safety ayuu fiyuuska yariyo dabku si yaro u tuwanaya uu jaraya dabku jaraya marka meesha cilad iyo xaasi timaado ugu dambeynna caadka yar baad ku xidhaysaa caadka yar wuxuu kaa caawinayaa xadhigka haddii dib loo soo jiido oo lasoo fundhiyo inaanu soo raacin aanu kuyin kadib labada bool ayuu wataa dhinaca dambaad kaga soo xidhaysaa midha koowaad markaad xidhaysana fartaad kusoo cadaadinaysaa si aanu caadka yaraa aanu boolkuu dhinac marin midha labaadna qunyar baad ku xidhaysaa haddii aanad business haysan ama tastarkan dabka waxaad adeegsan kartaa mididaada caadiga midi laxooxda kadib waxaad samaynaysaa haddii soo jiidnay marka xadhigka waad aragtaa wax noo soo raacaya maaha qaybtan ugu dambaysa waa iligka dheer ee badanaa ma isticmaalayno oo laba xadhig laba midab leh ayaa meesha kale haddii aanad haysan waa iskaga boodaysaa kadib waxaad ku xidhaysaa boolka yaraa ugu dambeeya oo qolfada hayay imarkana waan tijaabin doonaa saad aragtaan markaa fiishta markaan gelino ishiinkaan ku daaraynaa ishiinka markaan ku daarana wuu shaqaynayaa waad mahadsantihiin imarka waxaan ku dhowyahay in kala wargaarno gudaheed na soo raacda doonaysa inaad wax naga faa'iido looftana saar